السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. waxaan hore u sii wadeynaa inaan dhamaystirno xasuusta bishaani iyo dhacdooyinkii ugu weynaa ee bishaani Ramadaan dhacay. 12 Ramadaan sanadka 23 Hijriga kuna beegan 9 November sanadka 634 miilaadiga waxa dhacay dagaalkii Al-Buwayb. waxa lagu qiyaasaa dagaalkan inuu la mid yahay dagaalkii Yarmouk ee Shaam ka dhacay. dagaalkani waxa sababihiisa kamid ahaayay markii muslimiinta ku jabeen dagaalkii Al-Jisr ay isaga hor yimaadeen Farisiyiintii bisha Shacbaan 23 Hijriga uuna gaaray warkaasi khaliifkii muslimiinta Umar bin Khattab ayuu u doortay hogaamiyaha cusub Al-Muthanna bin Harith markii hogaamiyihii hore uu ku shahiiday dagaalka. wuxuuna khaliifku u diray ciidan gurmad ah oo badan oo hogaamiye ugu dhigay Jariir bin Abdullah Al-Bajali iyo sidoo kale wuxuu u diray Hilaal bin Alqama iyo Ala iyo Abdullah bin Disam iyo dhowr ciidan kale si ay ugu gargaaraan walaalahooda Ciraaq ku sugnaayay. sidoo kale warkaas markuu gaaray hogaamiyihii Farisiyiinta Rustum ayuu asna diyaarsaday ciidamo uu hogaamiye ugu dhigay Mahraan Al-Hamdani. kadib ay labadii ciidan isaga hor yimaadeen meel lagu magacaabo Al-Buwayb oo u dhow magaalada Kuufa ee wadanka Ciraaq. halkaas ayaa dagaal culus ka dhacay ilaa ugu dambeyn ay guusha ku raacday ciidankii muslimiinta. Farisiyiinta isku dayeen inay ka fagtaan goobta dagaalka laakiin muslimiinta raadkooda ay raaceen sidaas ayayna ku dabargooyeen ciidankoodii. waxaana la dhahay maalintaasi waxaa loogu laayay dagaalkan Farisiyiinta ku dhawaad 100,000 muslimiintana waxaa ka shahiiday 4,000. sidaas ayuuna Allah ku duleeyay Farisiyiintii muslimiintana u siiyay argoosigooda ciidankii kaga shahiiday dagaalkii Al-Jisr ama Bundada ee xalqadii hore ee bishii Shacbaan aan ku sheegnay. waxayna wadada u sii furtay dagaalkani in muslimiinta ay sii furtaan dalka Ciraaq iyo inay ka takhalusaan imbratoriyadii Farisiyiinta. 17 Ramadaan sanadka 2 Hijriga kuna beegan 23 Maarch 604 miilaadiga waxa dhacay dagaalkii ugu horeeyay ee muslimiinta galaan waana dagaalkii Badr. sidoo kale waxa lagu yeeraa maalintii Al-Furqaan wuxuu dhexmaray ciidan uu hogaaminay rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo mushrikiintii Quraysh waxayna ahayd sababta loogu bixiyay magacani Badr. dagaalka ayaa wuxuu ka dhacay meel ceel ah oo caan ah oo lagu magacaabo Badr wuxuuna u dhaxeeyay Makka iyo Madiina. dagaalkan ayaa sababtiisa ay muslimiinta oo doonayay inay is hor istaagaan gaadiid ay Quraysh leedahay oo ka yimid dhulkaasi Shaam kuna sii jeeday Makka uu hogaaminay Abu Sufyaan. laakiin Abu Sufyaan markuu ogaaday in muslimiinta jidka ugu jiraan ayuu qof u diray Quraysh asigoona ka dalbanaya inay ka soo gaaraan gaadiidkooda. nasiib wanaag Abu Sufyaan wuu la baxsaday gaadiidkiisa laakiin Quraysh dib uma laaban iyagoo kibir ku jira ay u soo bixeen goobtaasi Badr. waxaana tiradooda lagu qiyaasay 1,000 dagaalyahan iyo 200 fardoole ah iyadoo tirada muslimiinta ay ahayd 300 dagaalyahan iyo 2 fardoole ah. dagaalkani ayaa ku dhamaaday guul weyn ay muslimiinta gaareen waxaana muslimiinta loogu dilay dagaalkani 70 qof waxaana lagu qafaashtay 70 mushrik. muslimiinta kaliya waxa ugu shiiday dagaalkani ku dhawaad 14 qof. dagaalkani kadib ay muslimiinta ku yeeshteen haybad cadowgii ku hareereysnaay Madiina ee dhageerta la damacsanayay ay cabsi la soo wajahday ayna ogaadeen quwad cusub inay soo baxday. 20 Ramadaan sanadka 8 Hijriga kuna beegan 10 Janaayo 630 miilaadiga muslimiinta ayaa waxay furtay magaalada Makka waxaana ku soo biiray magaalooyinkii dawladda Islaamka magaalo aad ugu weyn qulubta muslimiinta. waxaana sabab u ahay furashadani in mushrikiinta Quraysh ay ka bixin heshiiskii nabadeed ee iyaga iyo muslimiinta dhexyaalay iyagoo ku kaalmay xulufadooda bin Bakr in ay ku duulaan qabiilka Khuzaaca oo xulufo la ahay muslimiinta. sidaasna ay ku buriyeen heshiiskii ay dhigteen mushrikiinta Quraysh iyo muslimiinta oo lagu magacaabay Sulhul Hudaybiyah. rasuulka sallallahu alayhi wasallam asigoo arintaas ka jawaabaya ayuu diyaariyay ciidan ka kooban 10 dagaalyahan si ay u furtaan Makka. ciidankiina wuxuu gaaray Makka waxayna furteen dagaal la'aan ilaa waxa dhacay iska hor imaadyo yaryar. natiijada dagaalkan ayay noqotay in reer Makka ay qaataan diinta Islaamka uu ka mid ahaa hogaamiyahooda Abu Sufyaan bin Harb iyo xaaskiisa Hind bint Utba. 22 Ramadaan 559 Hijriga kuna beegan 12 Agoost 164 miilaadiga waxa dhacay dagaalkii Xaarim waa magaalo ku taala gobolka Idlib ee dalka Suuriya wuxuuna u dhaxeeyay ciidankii muslimiinta uu hogaaminay Nuruddin Az-Zinki iyo isbahaysiga Saliibiyiinta ee ka koobnaa imaaradii Trablus iyo imaaradda Antakiya iyo imbratoriyadii Byzantiniyiinta iyo Armankii. dagaalkan waxaa guul weyn ka gaaray ciidamada muslimiinta. dagaalkan ayaa waxa uu sabab ahay Nuruddin Az-Zinki ayaa ciidan u aruursaday wuxuu rabay inuu galo dhulka Faranj wuxuuna degay meel lagu magacaabo Baqiica si uu hareereeyo dhufeesyadooda laakiin asigoo banaysan Faranjigii ay kediyeen wuxuuna uu ku sigtay Nuruddin in lagu dilo dagaalkaasi laakiin uu baxsaday. laakiin sanadkii 164 ayuu soo rogaal celiyay si uu u argursado wuxuuna helay fursad uu ku weeraro magaalada Xaarim markii uu boqorkii Saliibiga Baytul Maqdis u baxay duulaan si uu la dagaaltamo Asaduddin oo Masar joogay. wuxuuna ka dalbaday Saliibiyiinta kale hogaamiyihii qalcadda Xaarim inay u gargaaraan markaas ay sameysteen isbahaysi ay ku jireen imaaradda Antakiya iyo Trablus iyo imbratoriyadii Byzantiniyiinta iyo Armankii.
laakiin ciidankii Nuruddin Zanki wuu ka guuleystay waxaana lagu qiyaasay tirada dagaalyahanada muslimiinta 9,000 kuwa saliibiyiintina ay ahaayeen qiyaastii 30,000 sidaas ay tahay waxaa guuleystay ciidamadii muslimiinta waxaana lagu laayay in ka badan 10,000 dagaalyahan oo saliibiyiin ah waxaana lagu qafaashtay inta badan hogaamiyaashii saliibiyiinta dagaalkaasi hogaaminayay sidaas ayuuna Allah ugu guulay cadowgooda waxayna ahayd furasho weyn iyo guul cad oo muslimiinta haybadooda soo celisay cadowgoodina ku abuuray argagax 25 Ramadaan 658 Hijriga kuna beegan 3 September 1260 miilaadiga waxaa dhacay dagaaladii ugu waaweyn ee taariikhda islaamka waxaa u suurtagashay ciidankii mamaaligta ee hogaaminayay Sayfuddin Quds inuu gaarsiiyo guuldaradii ugu horeysay uguna xanuun badneed ciidamadii Tataarka oo hogaaminayay Katabga wuxuuna dagaalkan imaaday markii guuldarooyin badan ay soo gaareen ciidankii muslimiinta iyadoo Tataarka ay tirtireen dawladdii islaamka الخوارزمي كدبنا أي قبسدين بغداد عاصمة الدولة العباسيين أين كدلن خليفة عباسيين المعتصم بالله كدبنا أي راعي إن قبسدان شام يجدون وقت ياسي أي مصر أي كجرتي إسقى قبس ودحي ومرض المسلمين إلا وحكم كقبسد سيف الدين قدس سنة كي لعب بقول خندي تدودي كنا بيجان كن لو بقول خندي سال كي ميلادية أصول نقدي سلطان كي ممالك مصر كدب أيوب بلاوي إنه لسعيدن كي اسكون الدياري إنه تتارك كهرتجو kadib wuxuu iska dhisay xukunkiisa gudaha wuxuuna siibay kuwii kacdoonka ku waday xukunkiisa markuu Sayfuddin Quds uu diyaariyay ciidankiisii ayuu aaday goob ku taala bariga Masar oo la dhaho Saalixiya ilaa uu ka gaaray goobta Ain Jalut ay ku taala inta u dhaxaysa magaalada Baysan iyo Nablus ee dhulka Filistiin halkaas ayayna labada ciidan isaga hor yimaadeen waxaana guul weyn ku gaaray ciidankii muslimiinta wuxuuna ahaa dagaalkan Ain Jalut mid ku abuuray muslimiinta nafafkooda raadweyn una soo celiyay quwadoodii markii guuldaro isdaba joog ah ay la kulmaayeen wuxuuna ahaa dagaalkani midkii ugu horeeyay Tataarka lagu jibiyay taariikhdooda wuxuuna sabab u noqday inuu zuulo riyadooda ay rabeen inay ku sii qabsadaan inta kale ay ka hartay dhulka muslimiinta